الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خطبتنا maanta waxay ku saabsanayd dhamaystirka xadiidkii caabisi ama caliim al-Ghifaari nabigu lix buu inooga digay wuxuuna yidhi adduunku waa fasaadi doonaa khayrkiisuna waa yaraan doonaa waxyaabo badan baanad qiyaamada ka hor arki doontaan ee khayrka u degdega fasaadkii waxaa ka mid ahaa labada ugu dambeysay oo ah qaraabo goysnimo iyo qur-aanku ciyaar labadaasaa iman doonta qaraabada in la xiriiriyaay waxyaabaha waaweyn ee shariicada ay ka mid tahay ilaahayna wuxuu ballan qaaday qofkii xiriiriya qaraabada inuu xiriirinayo qofkii gooyana uu goynayo nabigana waxaa ka sugan inuu yidhi qaraabo goys janno ma galo innagana soomaalidu xadiidkaa halku dhigiyo mahmaa wuxuu noqday la yidhaahdo rixim goys waa reero naareed rixim goys waa reero naareed qaraabadaa la goynayee naarta lagu galayo adduunkoo fasaaday bay tilmaamaysaa fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi lardi dhulka inaad fasaadisaan wa tuqaطicuu arxaamakum dhaqan muslin iyo mu'miniinna ma ahayn wax laga baahan yahoo laga sugayana maaha laakiin qiyaamadu markay soo dhowaato xadiidka nabigu alay sl uli waqaطci larxaam qaraabadaa la goyn doonaa xadiid kaleoo saxaabo laga wariyay anas ibni maalik iyo cabdillahi bni camr caasina wuxuu leeyahay nabigu qiyaamadu ma dhici doonto ilaa waxyaabo badan dhacaan ilaa afxumada dabeecad dadka u noqoto dadkuna barashada afxumada ay ku faanaan oo la raadraadiyo erayada xun qofku uu barto horumar iyo wax in qiimo la gaadhay loo arko qiyaamada ma dhici doonto ilaa qaraabo goys dadku noqdaanna qiyaamo ma dhici doonto qaraabada in la gooyo sabab badan bay yeelan kartaa khilaafkan iyo dhibkan iyo dagaalka batay iyo dilka batay iyo colaaduhu way sababaan colaadda weliba qabiilka ku salaysani markay reertigaa iyo reer adeerkaa islaayaan dadkii isu wada seediga ahaa iyo dumaashida isu ahaa iswada laayaan dad meel wada dega oo ilaa kacab xidid soo ahaa isa soo wada dhalay markay isdagaalaan oo reer hebel iyo tuulo iyo xukun iyo dhaqaale iyo beer iyo daaq iyo ceel la isku laayo ee qaraaboga xidhiirin wayba dhaaftay oo waa la iswada dilayaa abtigii buu dilayaa oo ina abtigii buu dilayaa oo seedigii buu dilayaa oo wuxuu dhaafayaan jirin markaasaa waxaa imanaysa halka nin laba caruuroo agoona isugu iman wiilku dhalay oo ku dhintay carruurtiisii iyo gabadhiisii ninkii qabay oo dhinaca kale ahay oo la dilo agoon wadataa guriga isugu iman labadaba awow baad u tahay kana wiil gabadhaadii baa wadata kana xaaskii wiilkaaguu ka dhintay baa wadata labadoodaa isdilay dhinac kale seedi bay ahaan way isdileen dhinac kale markaad ka egto kana carruurtiisii abtigood buu dilay maxaa yaalla meesha qaraabadu markay dadku ahal yihiin ee la isdhexgala markay dagaalada iyo fitanku yimaadaan dee nin qabiil madax maray oo reer hebel madax martay ilaahayna aan xasuusanin aakharana aan ogeyn oo shaydaan ka adkaaday dee qaraabadii iyo raximkii xiriirinta la sugaya inuu gooyo oo dilo oo laayo waa wax maalin kasta dadkeenna bulshada soomaaliyeed ka dhaca tuulo kasta oo dagaal sokeeya ka dhaco abti iyo seedi iyo ina abti baa islaaya waa raximka isxiriirin lahaa naf iyo maal isu hori lahaa baa naftii iska goynaya maalkiina iska dhacaya xoolaha la soo dhacay waa abtiyadii kuwan uu dilayana waa ilmo abtidii iyo abtiyadii sidaas oo kaleeto wey carruurtooda abtigood weeye saas oo kaleeto wuxuu agoonta ka dhigayna walaashii wey waxaa agoonta haysatee odagii ka dilayna waa walaashii sidaasoo kaleeto way keentaa qaraabada in la gooyo xoola jacaylka fara badanna wuu keena inaad bakhayl tahay oo xoolahu ay kuleeyihiin oo sida soomaalida adu aadan lahayn soomaalidu geelay xoola ugu jeclayd geelu isagaa lahaa ee iyagu ma lahayn
markii hasha libaax ka dilana wuu isdili jiray. geelana waxaa la dhihi jiray geel lama yeesho waa muraayad, maalinba ninka hayaa ag joogaa isku daawada. geela abtigii buu dhici, kuwa adeeradii buu dhici, kuwii qaraabaduu boobi. xooluhu markaad aad u jeclaato huristoodii baa kugu adkaanaysa. tan marka bini aadamkuna haddaan ilaahay iimaan siinin adduunyo kababa dhargaba. nabigu wuxuu yidhi haddii qofka bini aadamka webi socdoo dahaba la siin lahaa mid labaad buu dayday lahaa, mid labaad haddii la siiyana mid saddexaad buu dayday lahaa. kama dharga xoolo inuu dhinto afka ciidda qabrigu buuxisa maahane, xoolo bini aadan kamaba dhargaba. markaad xoolo sii yeelaton buu iimaanku kaasii lumiyo tii hunguri weynaan. saa darteed dadkeennu waxay yidhaahdaan iimaan allah uur buuxiya. qofka iimaanka xagga rabbi uu ka qanciyo baa deeqee xoolo badan baad leedahay ma deeqaan. xoolo jacaylku wuxuu keenay in nin xoolo badan aabbihii gaajo u dhimanayo, hooyadii aynan dab shidan, abtigii ka dansan yahay, eedadii ay aradan tahoy gurigii iyo habaryartii ka soo bixi laayihiin, isagana xoolo ka buuxaan uusan shilin huraynin. marar badan baynu aragnaa inay xooluhu aada u jeclaato, bakhaylnimadu kaala badato, kaala fiicnaato. waktiguna xataa aada u huri weydo inaad la xiriirta iyo qaraabo inaad soo booqato salaanto aada wakti yar u huri weydana way keentaa. waxaa saddexaad oo keena aakhare ilowgaa keena. inaad aakharaba ilowdo way keentaa, inaadan xasuusanin inay waajib ilaahay ku saaray ahayd, in aakhare lagula xisaabtami doono, in ajir badan aad ka heli haddaad xiriiriso, haddaad goysana aakhare cadaab iyo naar ku sugayaan markaad halmaanto. aakhare xasuusteedu yaraato, in xisaabkaa dambaysa la halmaamo, camalkan ajirkiisa iyo wanaaggiisa la halmaamo, ka tegistiisa dembigu leeyahay iimaanku daciifo oo meel hoosiya sagxan gaaro, isagana wax qiimo ah baynan naftii ku yeelanaynin qaraabo iyo xigta la xiriiriyo. ummadda soomaaliyeedii burburkii tobannaankii sane u dambeeyey xiriirinta ahalka iyo asxaabta iyo qaraabada iyo aqoon la isku xiriiriyo ba ilaahay abaare iyo dhacdooyin badan kaga badbaadiyey. laakiin hadda meel xun bay kusii socotaa. hadda meesha xun ay kusii socotaa waxaa ka mid a qurbaha dadkii tegey dadkay dhaleen ma tirsana. ilmuhu waxay arkaan hooyadood iyo aabbahood oo bil walba lacag diraya, waxay u arkaan culays saaranoo maalinkii dambe wuxuu imanayaa duqii iyo duqdii oo murugaysan. maxaa kugu dhacay? hooyaday baa dhimatay, aabbahay baa dhintay. wuxuu ihi boole ama sore raalli ahow. laakiin soo kii dhibka culayska kugu haya maalinba lacag u diraysa maaha, waad ka nasani. ninkii halkaa ka marayso, soomaalida xawaaladleyda waxay isku raacsan yihiin intan odayaasha ee hadda iyo joogtaaye hadday tagaan da-da dambe inayna dadna shilin u soo diri doonin. waa bahashii oo soo badanaysa qaraabada la gooyo, way soo badanaysaa marmarka ka dambeeya. wax badan ilaahay wuxuu balaayooyin badan inaga caymiyey. qaraabadii, dariskii, asxaabtii iyo dadkaan istaqiineen inaad markaad waxesho iyagoo baahan wax u hurtood xiriiriso. waxaad arkaysaa dad miruun Maraykan jooga oo qof lacag u soo diraya oo biilaya waabay isyaqiineen. iyagana balaayo badan buu ilaahay kaga badbaadiyey, ummad baahanna ilaahay waa ku badbaadiyey. laakiin taa hadday meesha ka baxdo cuquubadii aakhara zamaankii baa soo dhow, cuquubaduna way soo degdegi. tan labaad ee nabigu ka digay waa qur-aankoo ciyaar laga dhigto. codka in lagu luuqeeyo qiimo aan dhaafsaysanaynna la geeyo. qur-aankoo codka lagu qurxiyo shariicadu aad bay u ammaantay. nabiga waxaa ka socosay inuu yidhi ilaahay ma dhagaysto oo ma dhag raariciyo inta uu si fiican u dhagaysta nabi cod macaan oo qur-aanka akhrinaya. wuxuuna nabigu yihi naga mid ma aha qofkaan qur-aanka markuu akhrinayo codkiisa ku qurxin. marna wuxuu yihi nabigu xasan soo maray abu muusa alashcari oo habeenka qur-aan seen cod quruxsan buu ahaa oo habeen keligii qur-aan iska akhrisanaya u dhagaystay.
subaxii buu sheego wuxuu xalanku soo marayo cod quruxsan oo qodkii nabi daawud iyo aalkiisa ilaahay siiyo kala lagu siiyey wuxuu haddaan ogahay inaad maqlayso waan sii qurxin lahaa codka quruxsan ee qur-aanka lagu akhriyay inaan ku dadaalo oo nabigu wuxuu yidhi ku qurxiya zayiru ku qurxiya qur-aanka codkiina wixii cod quruxsan lagu akhriyay dhagahana waa soo jiitaan qalbigana saameynaya khushuuc buu ku yeeshaa marka loo akhrinayo qofka aqrinaya ay saameyntiisa codkiisa ka muuqato qofka ilaahay siiyeyna waa fadli ilaahay siiyo inuu sida fiican u adeegsada laga doonayo qofkaan ilaahay siininna waa intuu dadaali kara inuu dadaalo wax kastoo shariicadu ammaantay dadku markay ka badbadiyaanna wuxuu isu bedelaa bidciya dembi qur-aanka waxaa laga digay xadiidkani tilmaamo dhowra in qur-aanka ay noqoto ujeeddada laga leeyahay cod quruxsan oo la maqlo waxaa iman doona buui ummad dambe oo qur-aanka ka dhigan doonta wax lagu luuqeeyo ku luuqayntaasii saasay rabaan wax ka dambeeya malaha qofkay qur-aanka u soo hormarinayaan meelahay isugu yimaadaan ama masaajid ha noqoto iyo salaad ama shir iyo xaflad ha noqoto wixii la dooniba ha loo shiro nolol adduunyo la raadinayo siyaasad iyo ganacsi iyo qabiil iyo qoys la dhisayaaro ha noqoto ama tacsi iyo geeri iyo meel la isugu yimid ha noqoto waxay hormarinayaan nin qur-aanka ugu luuqeeya oon ahayn nin qur-aankii yaqaana oo macnaheeda looga jeedo meeshan qur-aan fahamkii iyo dhadhansigii iyo macna dhuuxii la ysuguma iman meeshan dhawaaq quruxsan oo lagu luuqayaa la ysugu yimid taasuu nabigu ka digay sala allahu alayh wasalam 3 qayboodba culimmadu waxay sheegeen way ku timaadaa in qur-aankan la jiidjiidayaayo xaddii xuruuftiisii laga saaro oo meelaan jiidnayn oon mad lahayn la geliye ilaa ay xuruuf ka dhalato oo meeshii xaddii mad ka lahayn la dhaafiyo way keentaa marka xaddii qur-aanka iyo qur-aannimadii laga saaro xaddii meeshii qur-aanka ahayd laga saaro wax kale oo jinniya jaamba uu soo baxo dadkii heesayay intay dhabanadii iyo afka gacanta saaraan waaw lahaye hadalka kolbina u jiiday oo kaleeta uu noqdo maantana wax badan oo saas kamida waan aragno waan haynaa laba inay ka baxdaba ikhlaaskii iyo khushuucdii oon meeshabana la isugu imanin ee codkaa quruxsan iyo qayladaasun looga jeedo waxaad ku garan inaan la isugu imanin xaflad siyaasadeed oo kaambayna waa nin qur-aan yaqaana lasoo istaajin oo mikrofoonku ku akrin marka laga dhigana muusikada la shidan oo la garaacay dadka ma ilaahay ka cabsi isugu yimid aroos baa la keeni nin qur-aan akhriya halkaasuu mikrofoonka qur-aan kaga akrin markuu ka degana dhaansi baa la shidan dhaansi iyo niikaa laga shidan meesha dadka qur-aanka nalagu furfura leh ma alla ka cabsi iyo khushuuc qur-aan u yimid wacdina looguma yeedhin ninkan qur-aanka noogu luuqay baa loogu yeeray waxaa meesha ka dhici doona reer hebel baa shiri qur-aan noogu furfur baa la dhihi si reer hebel wax loo yeeli lahaa iyo xumaan iyo makri iyo duulaan baa lagaga sheekeynayaa loo ballaabay meesha iyo qaaraan lagu roriyey qur-aankan maa la kacabsi baa loogu akrinayaa meesha qur-aan luuqayn looga jeedo oon fiqi iyo cilmi iyo khushuuc iyo alla kacabsi iyo looga jeedin qaybtaana way noqotay yataqanaa bilqur'aani oon ilaahay dartii ahayn qolyo akhriya oon inay fahmaanna u jeedin axkaamtiisana aan aqoonin ilaahayna aan uga cabsanin oo xirfad iyo shaqo ka dhigta oon ikhlaasna jirinna way noqotaa quraa'ul ma'aatimka waad aragteen oo qolyo waxaa jira waxooga ay ku qaata
inay xafladaha wax ka akhriyaan salaadna tuki haddii la yidhaahdo sahwi yar yimaada ma yaqaana si loo tukada ma yaqaan waxa waa weysada axkaamteedana ma yaqaan salaada iyo axkaamteedna ma garanayo meeshan uu soo fadhiistaa ramadaan baa la galaa meelaha qaarkood inta taraawiixda la sugayo halkaa intuu fadhiisto buu qur-aanka jiidjiidaa haddii imaamkii la waayo salaada uu ina geliyo si loo tukada ma yaqaano dabayaaqadii 1998kiiba waxaan joogay Sydney magaalada Australia masaajid weyn oo jaamic xaafad muslimiintu ku badan oo la keenba la yiraahdo baanin Masar laga keeno kuwaas oo kale ta habeen kasta quraanka akhrin jiray imaamka Sheekh Yahya la dhihi jiray uu soo daahay isaga indheerna tuki baadinkoona qina waxaan gacanta qabtaan ku war ninkan salaad ma yaqaane quraa'ul maatin baa la yiraahdaa adigu salaadana tuki ninkan gelin intuu gacanta iska tuuraa gelin la yiri isna kuma tala gelin isku dhaxyaacay waa sahwiyay wuxuu tukaday uu garan waayay kaas intuu soo jeesay inuu ka baxa salaada dib ka bilaabayna ninkii ay soo fiiriyay adiga fiirin ma ku ka quraan ma yaqaan salaad ma yaqaan waa kan ku yiri kuwaas oo kale to quraa'ul maatim la yiraahdaa jiray janaasada markay yimaadaan ninkan lacag buu ku akhriyaa quraanka hadii wax fiican la siiyana aayadaha jannadu akhriyaa haddii aan lacagtu raba la siinina khuduuhu faqulluuhu uma jaxiima salluuhu ma akhriyaa kaasada ma quraanka ninkan la keenay maatimta uu akhrinayo ma quraan khushuuci ilaahay dartii ahba quraan ahkaamtii ma yaqaan salaad ma yaqaan kuwaas oo kale tana waa qaybta soo galaya sadarteen ya ummul qawm aqra'uhum likitaabillahi nabigu markuu alayhi salaam haddana uu leeyahay saxaabada aqra'uhum ubay ibn ka'b xilligii Umar baa ugu horeysay Ubay ibn Ka'b oo taraawiixda tuki la dhaho dad quraankana yaqaan ahkaamdiisa joogo nabiga tukan jiray Abu Bakar baa tukan jiray Umar baa tukan jiray sadarteed aqra'uhum tam'ani badan bay xambaarsan tahay alfaada codka la qurxiya kaliya ma ولذلك خلط كمساجد رمضان كلا جلا وحاكمنا نمان قرآن كعد قرحسن أو أحكام صلاة أقول ندت كإن لهور مريو مساجد وحلو بابا هي إنك عد قرحسن القرآن كيقانا إن أحكام الصلاة كسو امتحانات إنت صوب بقول أما كمبو صلاة هرجليا هذا وحي يرخل ضمان ما قرنا يسلوتكيو يقدمون أحدهم ليغني اللهم بينقن حرب أنا أقول قلنا هذا dadka walaalaha iyaga ilaahay quraanka baray codka wanaagsan siiyay yaan la idin ka dhigan badeecad xafladaha lagu furto quraanka ilaahay idin siiyay qiraa'ada khushuucda alahay markay salaad iyo timaada dadka ahkaamtiisana fahma qiraa'ada khushuucna dadka ugu akhriya idin naajir baad ka helaysaan dadkana waa ku hanuunayaan laakiin waxaan la idin ka dhigtay badeecada suuqyada in la idin ku furto حفلها اللي يدينكو أبابوشو تا إلهي كبقدان قرآن كحرمية كوى النبي قلنا لأيها النقنين دين حفلها اللي يدينكو هذا فران أيوه وحبذارو الدين تا إلهي كبحسن الله سمين أيوه وريدين كوح قناع ستاه أو مسوق ماسوق يقش كشاقايسته مناسبات دي قش كودا كو أقاسيم أيان قاران كانوا أرورسان أيان محاد قرآن أذكر حسن وفر فريسان قبيل دل iyo boob iyo qaraan xun ka shaqeynaya maxaa quraanka miiska leedin soo taagaya campaign siyaasi oo laaluush iyo hees ku shaqeynaya maxaad xafladiisu hor taagantihiin oo mikrofoonkiisa iyo fiyoogis oo muuqataan aroosiyo muusik iyo nikal ugu gabagabeynayo maxaa albaabka furay idin ka dhigay maxaa idin ka dhigay quraanka iyo codkiina quruxsana badeecad raqiisaho intii xaflada cunta laga siiyo codkooda lagu furfurto maxay idin ka dhigay war quraanka iyo codkiisa qiimaha badnaa ha qiimo dilina meelahaas oo kalena iskala weynaada waxa laga rabaa inaad iskala qiimo badnaataan qofan meelaha lagu furfuranin badeecada albaabka lagu furto ee arkay la yiraahdo idinka quraankiina waa ka qiimo badantiin وكم مقام سريسان حتى ولاد وعدي محاضرة سمينية قرآن هو فرفرنا قرآن هو فرفرنا هل يلقى الذين كدقن ددكينا قرآن كي يقانا
يلا إذن كدغن حيسيس كلامدا لو حيسيستو يلا إذن كدغن oo ilaahay uga baqa quraanka iyo qiimihiisi dadka akhriyeysaan way aamusayihiin laakiin khushuuc meesha ma taalo meesha khushuuc ma umayna nimanba wacdi iyo iimaanna looma imaninba muran iyo qayle iyo gacaya garan iyo dambi baa meel badan loo yimaada warnimo ilaahay ka yaabo quraanka taas ka daayay warnimo ilaahay nicmadan ilaahay idin siiyay oo laqad utida mizmara min mazamiri ali daawud la yiri oo la yiri ma adina allah li shay'in ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن وإلهي بقول تعليه ما راحون هدينا نعمذا الشكر جيدو ماشى كفي عنا يكوها بولنا دكتانوي ما نعمذا الشكر جيدو إن تكلي إن كو آخردان طلبة العلم قرآن براينا كبرتان وتكجس حدان ده إلهي هرتاجان وتكنا ينا قد خشوع له آخردان وي معها إن حفل ذا يسيل ذا السوق laydinku xayeysiista maaha ilaahay ka yaabo quraankii waa la ihaanaystay idinkuna aswaad quruxsan baad sabab ugu noqoteen ee ka daaya khayr allah idin siiye اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم لمنا ارشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ات نفوسنا تقواها اللهم زكها انت خير من زكاها اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك ومن النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واقم الصلاه